sida hadda uu sheegay wasiirka amniga iyo gobernatooraha gobolka ahna duqa magaalada waxaa tacsiu direynaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka dhintay runtii sarkaal haliyay ah oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka 7 subaxnimo intaan la gaarin salaada markaan tukanaa aniga isuuka ay dambeysaan wada hadalay wuxuuna ku jiray oo ku maqnaa howlgalka lagu xoreynayo sida haddaba la sheegay khawaarijka looga xoreynayo dalka looga xoreynayo sida hadda uu gobernatooruhu sheegay kuwa kalena waa dhiman doonaan wax loo harayo ama la joogayo ama cid wax yeelaysa maaha ciidanka iyo ummadda Soomaaliyeed waxay go'aansatay xaaladda ay ku jirto xaalad ka liidata oo maanta ay gaari lahaayeen malaha markii ceelasha laga gubay wadooyinka la kala